وقابر يا ووطني وقل كدايا ووطني وقابر يا ووطني وقل كدايا ووطني كوحقبا كرايا ووطني Nairobi baa muddooyinka u dambeeyay saldhig u ahayd siyaasadda. Waxaa la sheegay inta halkaas ku sugnayd inaad kulanteen mas'uuliyiin gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ciro horkacayo oo ka wada hadasheen arrimo la xiriira midnimada Soomaaliya. Mudane Farmaajo waftiga Cabdiraxmaan Ciro markaa Nairobi ku kulanteen maxaa kaloo ka wada hadasheen? Waa dad Soomaaliyeed oo runtii niyad wanaagsan runtii doonaya caruurta Soomaaliyeed iyo mustaqbalka Soomaaliyeed inuu la mid noqdo dadka horumaray taasna waxay ku imaanaysaa midnimo aniguna waxaan u sheegay Soomaaliya hadii la rabo caruurteena inay caruuraha adduunka ah ay la tartamaan ama ay la mid noqdaan waa in madaxda Soomaaliya meel kasta ay joogaan inay isu yimaadaan ay mustaqbalka caruurtooda ay ka horumariyaan siyaasadda wafdigaasi si briefly ah yaan u kulanay runtii de waxay sugayaan dawladdan federaalka ah sida u dhaqanto ay sugayaan iyagu runtii Soomaaliland waxaan ognahay inay horumar gaareen ay nabadgelyo keeneen ay ka shaqeeyeen sidii ay mustaqbalkooda ma garatay marka anaguna waa inaan taas keenno marka adigoo kale Soomaaliya imika madaxtinimada doorashadii baad u tartamaysaa murashax mucaarada tahay Cabdiraxmaan Ciro kale waa murashax mucaarada Soomaaliland buu ka tartamaya nidaam siyaasadeed miyaa dhigateen oo yaani qorshe siyaasadeed oo ku duraysan hadii labadiinuba guuleysataan haddee runtii dareenkaas waa wada qabnaa qof walba oo Soomaali ah oo horumar iyo nabad u doonaya dadkiisa runtii de waa in siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin la yahay in laga hadlo laakiin xaqiiqda jirto waxay tahay hadee iyagu naftooda hawl iyo ku mashquulsan yihiin anna hawl kalaan ku mashquulsanahay marka inaan waxba aysan isdhexgelin بريايا ووطني وقل كدايا ووطني وقابريايا ووطني وقل كدايا ووطني كوحقبا كرايا ووطني